qaar ka mid ah ardayda kulliyadda warshadeynta cuntada ee jaamacadda Abraar ayaa maanta soo bandhigay sida loo sameyn karo cambaha jarjaran waliba lagu shubayo dhalooyin kaas oo ah mid ooli kara muddo si loo isticmaalo xilliyada miraha cambaha ay ku yaryihiin suuqyada. aqoonta ardaydan ay soo bandhigeen ayaa ah mid aad loogu baahan yahay marka loo eego dhinaca wax soo saarka wadankeena oo leh dhul beereedyo ballaaran oo ay ka soo baxaan miro kala duwan sidaasi oo ay tahayna waxa ay dadku inta badan isticmaalaan cabitaano qasacadeysan oo laga keenay dibadda. Aisha Cabdisataar waxa ay ka mid ahayd ardaydii maanta soo bandhigay qaabkaasi loo sameyn karo waxaana ay inoo sharaxday sida ay u sameeyeen. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Bulshada dhawa salaamaya. Horta magacayga Aisha Cabdisataar la dhahaa. waxaan dhiganaa kulliyadda food engineering oo qayb ka mid ah engineerinta weeyaan. Food engineering waxay tahay waxa weeyaan warshadeynta oo cuntada weeyaan. Warshadeynta oo cuntada oo mataqaana oo hadda muddo ooli karta oo tusaale camal oo kale hadda oo wadanka oo yaala waxa weeyaan yoogada camal oo kale waxyaabo qasacsan oo supermarket-yaasha lagu iibiyo weeyaan. maanta waxaan sameynaa practical jaamacadda Abraar ku sameynaa practicalka waxaan sameynaa maanta camba oo muddo dheer yaali kara baa ku sameynaa maanta. marka maanta waxay ka samaysan tahay oo ka kooban tahay sugar syrup ka samaysan tahay iyo cambihii oo la habeeyay la jarjaray oo la farsameeyay weeyaan oo lagu daray meelo qasacsan oo habaysan. sidoo kale waxa aan wax ka sii weydiiyay bal in cambahaasi ay dhalada ku shubeen uu saameyn caafimaad ku yeelan karo bulshada isticmaalaysa iyo qaabka ay uga taxadareen arintaasi. saasoo kale horta faa'iidooyinka ay leedahay mayaamaha waqtiyaal waxa jira oo la waayo cambaha ama qaali oo noqdo ay dadku awoodi karaan in la soo gadan karin ba waqtigaas anfaci kara oo faa'iido badan leeyahay. marka ugu horeysa waxyaabo badan oo adeegsanaa waxa weeyaan mashiinka oo cabirka waan ku cabirnaa waayo isaga wax yar oo cabir yar oo khafiif ah oo ku ziyaadmo saameyn ku yeelanaya. marka si yar oo daqiiqa loo cabiraa oo toosan suuna cabir fiican oo si wanaagsan oo hadhowta aan ku tashano oo noo soo baxo. ta kalena waxaan siinaa kuleel fiican siinaa oo si degan oo kulaado u kala fadhiisto. ardaydan ayaa dhinaca kale aad ugu faraxsanaa in ay noqdaan kuwa barta maadada warshadeynta cuntada ama food engineering-ka waxaana mar kale wax ka weydiiyay sida ay uga faa'iideen bandhigooda maanta. bismillaah magacaygu waa Axmed Abdullaahi Axmed. practicada ugu horeyntii wax walba aan baranaysid waxaa la rabaa baakacanaada ku sameynaysid ogaatid hadal faa'iidada koowaad waa taas. secondly bulshada waa inaan u soo saarnaa waxa u soo saareyno ardaydu waa inay fahansan yihiin. insha Allah waxaan rajeynayaa mustaqbalka waxyaabo badan inaan sameeyno oo tusaale dalka dibadiisa waxa ka imaan waxyaabo badan oo dalka loo sameyn karo laakiin qalabo ama waxyaabo loo sameyn karo ama dad oo cilmigaas leh inay joogin. waxaan rajeynayaa insha Allah waxyaabahaas inaan dalka gudihiisa aan ku sameeyno insha Allah biidnillahi kariim. dhinaca kale waxaan la kulmay injineerkii wax soo baray ardayda maanta soo bandhigtay warshadeynta cambaha ee jaamacadda Abraar waa injineer Cabdalla oo aan kula kulmay xafiiskiisa anigoo weydiiyay bal marka faa'iidada ay u leedahay bandhiga maanta ay soo bandhigeen ardayda iyo guud ahaanba waxa ay soo saareen bulshada Soomaaliyeed. maanta practicada aan qaadanay oo ahayd in cambe waqti dheer yaali karo in la sameeyo. sanadii hore waxaa sameynay tijaabo cambe shiidan oo dib loo sii qasanaya oo yaali kara muddo 9 bilood inaan sameynay. sanadkan hadeertaan isla ardaydii qayb ka mid ah waaye oo waxay sameeyeen cambe jeexjeexan ilaa dadka cambaha uma rabaan cabitaan kaliya cambe jeexjeexan oo muddo yaali kara 9 bilood ilaa sanad yaalaya ilaa sameyno si oo loo helo waqtiga cambaha uu soo baxay maana waqtigiisa waqti ka duwan. waan si fiican aan u fushay oo ardayda si fiican ay u fahmeen cid sameeynaysa ayaga ahaayeen. si kastaba waa ay kala duwan yihiin marka aad waxaad baratay ku samayso practical iyo marka aadan ku sameynin sida ardaydan oo kale oo maanta waxa ay soo bandhigeen darteed ku noqon kara haliye anfaca bulshada Soomaaliyeed. Cabdilaahi Qadar Axmed Cusmaan, Asal 24, Muqdisho.